السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدا وديال كسو دوادا ورarka caalamka iyo kuwa Soomaalida kuudu waaweyn Garmaal TV sana waxa kamida qaramada midoobay ayaa baaraysa markab Turkish oo lagu arkay xeeb Imaam Al-Shabaab. Hadaba jawaabta qaramada midoobay maxay salka ku haysaa warka Garmaal TV ayaad kaga baga doontaan doorasho gacan taaga oo ka dhacday magaalada Muqdisho. Hadaba kuraas ayaa ku soo baxay warka Garmaal TV ayaad xogta dhameysan ka heli doontaan. Dowladda Federaalka iyo Midowga Afrika ayaa bayaan ka soo saaray qorshaha kala guurka ee Soomaaliya ku jirto. Adoo Midowga Afrika iyo dowladda Soomaaliya oo heshiis kala saxiixday ayaa idin soo gudbin doona Qatar oo Imaaraadka ilaalinaysa inay kasbato ciidanka Soomaaliya. Koonfur Galbeed oo qabatay doorashada kuraas oo ku jiro kursiga xildhibaan Dalxa. Hadaba kuraastaas ayaa ku soo baxay warka Garmaal TV ayaad kaga baga doontaan. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu door karo warka Garmaal TV iminkan u diyaar garooba iyagoo dhameystiran. aan ku bilaabay daawadayaal qaramada midoobay ayaa baaraysa markab Turkish ah oo lagu arkay xeeb Imaam Al-Shabaab. Gudiga khubarada qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya kuwaas oo kormeera hubka sharci darrada ee la soo geliyay dalka ayaa sheegay in baarayaan markab Turkish oo lagu arkay xeebta aag Imaam Al-Shabaab bishii Agoosto 2021 sidoo kale wargeys ka soo baxay dalka Mareykanka. Markabkan oo ay leedahay isla markaa maamusho shirkadda laga leeyahay dalka Turkiga ayaa muddo 24 saac ku sugnaa meel kaliya muddo 100 mitir oo u jirta xeebta aag Imaam Al-Shabaab sida lagu ogaaday qalab ku xiran markabka la sheegay halka uu ku sugan yahay oo la yaqaano aagaasi ma ahan meel ay maamulaan ciidamada amniga Soomaaliya waana meel Al-Shabaab ay maamusho waxaa loo yaqaan Calguud oo u dhow Cadale ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay baariyaasha qaramada midoobay. Sida muuqata shakiga ayaa ka dhashay sababta markii muddo 24 saac uu ku sugnaa meel Imaam Al-Shabaab waxaana ka dhashay tuhun in laga yaabo inuu hub u geeyo kooxda Al-Shabaab. milkiilayaasha markabka ayaa sheegay in weerar kula kulmeen xeebaha Soomaaliya 13 Agoosto 2021 isla markaana lagu soo rogay qoyaasha loo yaqaan RBG iyo rasaas yar sida laga soo xogtay kabtanka markabka iyadoo oo muuqato inay ka dhaadhicin sheekadan ayaa baariyaasha qaramada midoobay waxay warqad rasmi ah u direen shirkad Turkish ah ee leh markabkan iyagoo dalbatay cadeymo ku saabsan sababta markabkaas ugu xidhnay biyo u dhow meel Imaam Al-Shabaab iyo xog dheer oo ku saabsan weerarka sheegay lagu soo qaaday. shirkadda ayaa ka soo jawaabay su'aalaha baariyaasha qaramada midoobay waxaana warbixinta loo gudbiyay golaha maanka qaramada midoobay 6 Oktoobar sanadka 2021. dowladda Turkiga ayaa wali ka hadlin dhacdadaasi. baaritaanka qaramada midoobay ayaa muujinaya in markabka uu ka tagay gobol ku taal koonfur Turkiga isla markaana ku nagaada xeeb Imaam Al-Shabaab 20 bishan ilaa 13 Agoosto uu halkaas ku xanibnay. sida ku cad xogta diiwaangelinta markabka ayaa waxaa leh markabkan qoys ganacsada oo dhashay Turkiga 15 September sanadkii 2021 sida ku cad go'aan ka soo baxay maxkamadda ganacsiga ku taala Istanbul. tani wuxuu micnaheedu yahay in xilliga markabka oo ku xidhnaa halka shakigu ka dhashay ay tahay shirkaddan ay wajahayso culays dhanka dhaqaalaha. arrinta kale ee shakiga weyn dhalashay ayaa ah in markabkan hore u lahayd hay'ad Turkish oo lagu magacaabo IHH oo hadda kor la xiriira ururka Al-Qaacida taasoo isku soo dhiibtay sanadkii 2018. waxaa sidoo kale marar badan soo baxay cadeymo muujinaya in shirkadda IHH ay taageeraysa kooxaha Daesh Al-Qaacida ee ku sugan Ciraaq iyo Suuriya. bishii Janaayo 2014 dacwad ogaha Turkiga ayaa dacwadda ugu horeysay ka xareeyay hay'adda IHH kadib markii baaritaan ay sameeyeen booliiska oo lagu ogaaday in hub u dejisay kooxda Al-Qaacida. daawadayaal wali waxaad daawanaysaan warka Garmaal TV. doorasho gacan taaga ah oo Muqdisho ka dhacday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaa haatan ka socota doorashada kuraas ka mid ah xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaaraan kuraas deegaan doorashada tahay gobolada waqooyi. kursiga hoob 205 oo lagu bilaabo doorashada ayaa waxa ku guuleystay Axmed Cabdi Kooshir kadib markii uu tanaasulay Mune Xuseen Faarax oo la tartami lahayd. Kooshir ayaa loo qaaday cod gacan taag ah wuxuuna helay 99 cod sida uu shaaciyay gudiga maamulka doorashada kuraasta gobolada waqooyi ee Somaliland. guusha xildhibaan Maxamed Cabdi Kooshin ayaa ahayd mid la sii ogaay maadaama si gaar ah kursiga loogu xiray si uu ugu biiro baarlamaanka 12aad ee dalka u yeelanayo. kursiga labaad ee hoob 263 ayaa waxaa ku guuleystay Muuse Saciid Jaamac oo helay dhammaan codadka ergada oo ah 101 hal waxaana u tanaasulay Qadri Cabdi Maxamed. sidoo kale waxaa cod gacantaa ku soo baxay xubnaha kale ah Cali Maxamed Aadan oo ku guuleystay kursiga hoob 240. Cali Cabdi Ibraahim ayaana ku soo baxay kursiga hoob 221 iyo Cabdiqani Ismaaciil Saciid waasna ku guuleystay kursi tirsigiisu yahay hoob 241. gudiga doorashada Somaliland ayaa ku hoolan daadejinta doorashada taasoo qayb ka fulinta heshiiska doorashada ee lagu gaaray gudaha magaalada Muqdisho. si kastaba doorashada golaha shacabka ayaa haatan si dardar loogu socdo dalka waxaa la qorsheeyay yahay lagu soo gabagabeeyay 25 Febraayo sanadka 2022. daawadayaal wali waxaad daawanaysaan warka Garmaal TV. Qatar ayaa Imaaraadka ilaalinaysa inay kasbato ciidanka Soomaaliya waxaa sii xoogeysanaya loolanka dalalka khaliijka ee Soomaaliya
iyadoo qatar 5 sano ee farmaajo ahayd dal saameyn siyaasadeed ku leh dalka. Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa haddaba dib u soo nooleynaya dhaqaayadii diblomaasiyadeed ee Muqdisho iyadoo safiiradooda dhowr sano kadib ugu soo laabteen saaxada siyaasadeed. Qatar ayaa isha ku haysa dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga ugu jiraan inay gacanta ku dhigaan siyaasadda Soomaaliya, waxaana isku dayaysaa inay ka soo xirato albaabada oo idil. Safiirka Qatar Xasan bin Xamza ayaa shalay la kulmay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Odwaa Yuusuf Raage oo uu tagay xafiiskiisa Muqdisho. Qatar laguma baray inay taageerto ciidanka Soomaaliya oo tababarayaan Mareykanka, Turkiga iyo Midowga Yurub, iyadoo Imaaraadku joojiyay markuu khilaaf bilowday sanadkii 2018. Imaaraadka ayaa saldhig Gordon oo ku yaala Muqdisho ku tababari jiray guutada 14 Oktoobar oo ka mid ah militariga Soomaaliya ilaa 2018. Qatar ciidanka waxay ka ilaalinaysaa Imaaraadka marka inuu ku soo laabto saameynta ku lahaa militariga, maadaama hadda xiriirkoodu dib u soo celiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Markii ugu horeysay oo Qatar ciidan u tababarto Soomaaliya waxay u qaaday kumanaan dhalinyarada dalka Eritrea, kuwaasoo markii la tababaray loo qaaday Tigray oo ku dhintay ayagoo difaacaya xukuumadda Abiy Ahmed oo saaxiib dhow la ah madaxweyne Farmaajo. Dhalinyarada ayaa waxa laga soo kala qoray dalka si qarsoodi ah haba ugu badnaatay Galmudug, waxaana lagu qiyaanay in Qatar loo qaadayo iyagoo ka shaqeeya doon ciyaaraha koobka adduunka 2022 balse la geeyay Eritrea intii u dhaxeeyay 2019 iyo 2020. Daawadayaal weli waxaad daawanaysaan warka Garmaal TV. Koonfur Galbeed ayaa qabatay doorashada kuraas oo ku jira kursiga xildhibaan Dalxa. Magaalo xebeedka Baraawe waxaa maalintii labaad lagu qabtay doorashada kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka baarlamaanka, kuwaasoo deegaan doorashadu tahay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. kuraasta doorashada lagu qabtay ayaa waxay kala yihiin Hob 250, Hob 160, Hob 173 iyo Hob 80. waxaana ku jira kursi uu ku fadhiyay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo hore u shaaciyay loo diiday inuu ka qayb galo doorashada ka socota Baraawe. Aweys Xasan Macalin ayaa ku soo baxay kursiga uu tirsigiisu yahay Hob 80 maadaama loo xiray, wuxuuna helay 76 cod sidoo shaaciyay guddiga. Sidoo kale xubnaha kale ku soo baxay ayaa ka mid ahay Cali Maxamed Sheikh oo helay 80 cod ayaana ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay Hob 250. Maxamed Yuusuf Xasan oo helay 73 cod ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay Hob 160. Sidoo kale Cabdifataax Cabdullaahi ayaa isna helay 73 cod ayaana ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay Hob 173. Baraawe oo ah deegaan doorashada labaad ee Koonfur Galbeed ayaa waxaa shalay lagu qabtay doorashada ilaa 7 kursi, waxaana ku soo baxay xubno aad ugu dhow madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Guudaan daawadayaal halkaasaan ku soo gabagabeynaa warka Garmaal TV aad ka daawanayseen. Nabadgelyo, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.